Bismillaah, magaca Ilaahay baan ku bilaabaynaa, Allahaas oo naxariis guud iyo naxariis gaar ahba. Mahadna Ilaahay bay u sugnaatay, waxaannu ku salinaynaa xabiibkeena Maxamed. Ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha yeelee. Walaalayaal, waxaynu soo qaadanaynaa maanta taariikhdii xaaskii Nebi Ayuub. Ilaahay naxariistiisa korkiisa ha yeelee. Waxaynu la soconaa in Nebi Ayuub uu ahaa nin wanaagsan oo Ilaahay caabuda, markaasuu Ilaahayna siiyey ubad badan, xoolo badan, addoommo badan oo u adeega. Hase ahaatee, mar keliya ayaa Nebi Ayuub la imtixaamay, isagoo laga qaaday caafimaadkiisii, carruurtii uu dhalay, xoolihiisii iyo addoommadii u adeegi jirayba. Haddaba waxaynu milicsanaynaa taariikhdii haweenaydii Nebi Ayuub oo ninkeedii wanaagsanaa la qaadatay nolol cajiib ah, dhibtii soo gaadhayna la qaybsatay. Haweenaydan waxaa la odhan jiray Liyaa bintu Maanshaa ibnu Yuusuf ibnu Yacquub ibnu Isxaaq ibnu Ibraahim. Waxay ka soo jeedaa qoyskii nebiyada ee reer banu Israa'iil, waxaana qabay nebi ka mid ah nebiyada Ilaahay, wayna rumaysay oo la qaybsatay nolol raaxo leh. Nebi Ayuub oo xoolo badan Ilaahay siiyey, sidoo kalena ubad badan la siiyey, ayay xaaskiisa Liyaa ay ahayd mid u adeegta daacadda iyo raalli ahaanshaha ninkeeda. Labadooduba waxay ku noolaayeen nolol barwaaqo oo aanay dareemin dhib ama wax ay kahdaan oo ay nacaan. Markay muddo dhan 70 sannadood ay wada noolaayeen, ayaa mar keliya waxaa qoyskii ku habsatay masiibo ama imtixaan rabbaaniya oo uu Allaah doonay inuu ku ibtileeyo nebigiisii Ayuub iyo haweenaydii Nebi Ayuub ee Liyaa. Waxay waayeen xoolihii iyo ubadkiiba kadib markii ay dabayl dab wadatay ay ku dhufatay beertoodii. Nebi Ayuub oo dhibtaas u dulqaatay oo Ilaahay ku kalsoon ayaa haddana isagii waxaa asiibay cudur baralays ka dhigay oo uu la fadhiistay. Nebi Ayuub wuxuu noqday bukaan jiif ay daashatay cudurkaas halista ahaa. Haweenaydii Liyaa oo shalay ahayd gabadh boqorad ah oo lahayd xoolo badan, ubad badan, addoommo u adeega iyo sawjkeeda oo u caafimaad qaba, ayaa mar qudha ay ku soo habsatay dhibtani. Odaygeedii ayaa dadkii ka yaaceen, oo xitaa dadkii ehelkiisa ahaa ayaa ka orday, ayagoo dhahaya, Ayuub waxaa loo ciqaabay, waa dembiyo uu shaqaystay. Haweenaydii Liyaa way ku samirtay waxaa dhib soo gaadhay ninkeedii, wayna la dadaashay odaygeedii intii ay awoodday. Waxay bilowday inay ka shaqayso guryaha dadka kale, ayadoo jaariyad ah, si ay u soo diyaariso cuntada iyo cabbitaanka ninkeeda uu cunayo. Muddo ayaa ka soo wareegtay, Nebi Ayuubna waa sidiisii oo kamuu soo raynin ee keliya waxa uu bad qaba labadiisa dibnood iyo carabkiisa oo uu ku xusayo magaca Allaah. Maalintii dambe ayay Liyaa weydiisay Nebi Ayuub, Nebi Ilaahayow, maxaad u baryi weyday Ilaahay? Ha kaa dulqaado dhibta kula soo darisataye. Nebi Ayuub wuxuu yidhi, imise sano ayaynu nicmo iyo barwaaqo ku jirnay? Waxay tidhi, 70 sannadood. Wuxuu yidhi, 70 kale miyaanan u samrayn dhibta Ilaahay igu imtixaamay? Liyaa cimrigeedii ayaa weynaaday oo dadkii waxay u diideen inay ka shaqayso guryahooda, waxayna garan weyday qaab ay u keento cuntadii Nebi Ayuub. Ilaahay raalli ha ka ahaadee. Maalintii dambe ayay tidhicday timaheedii oo ay goysay qayb ka mid ah, kadibna ay iibisay oo ku soo gaday cuntadii Nebi Ayuub. Nebi Ayuubna wuxuu la yaabay meeshay ay ka keentay cuntada maadaama ay dadkii diideen inay shaqo geliyaan. Hase ahaatee, maalintii xigtay ayay sidii oo kale ay gaday qaybtii kale ee timaheedii kuna soo iibisay cuntadii. Nebi Ayuub uu weydiiyey meesha ay ka keentay lacagta, waxayna ugu warrantay inay timaheedii iibisay. Halkaas ayuu Nebi Ayuub ku baryay Ilaahay isagoo leh, Rabbiyow, way i taabatay dhibtii. Sidoo kale wuxuu ballan ku qaaday inuu 100 jeedala ku dhufto haweentiisa markuu bogsado, maadaama ay ku kacday falkan. Xaaskiisii Nebi Ayuub way baxday, kadibna waxyigii ayaa u yimid Nebi Ayuub oo leh, ku garaac lugtaada dhulka, waxaana ka soo burqamay il biyo ah. Kadibna waxaa la faray inuu ku qubaysto iyo inuu cabo, sidaas baanu Nebi Ayuub ku caafimaaday. Xaaskii Nebi Ayuub ee Liyaa ayaa soo noqotay, waxayna la kulantay nin dhallinyaro ah oo qurxoon. Markaasay weydiisay ninkii, ma ragtay nebigii la imtixaamay? Ayadoo isweydiinaysa, tolow ma bahal ayaa cunay?
ninkii ayaa la hadlay oo yidhi, aniga weeyey nebi ayuub. liyaa way yaabtay oo fajacday, kadibna waxay u mahadcelisay ilaahay. nebi ayuub waxaa ilaahay u soo celiyey ubadkiisii iyo kuwo la mid ah, waxaana ilaahay ku manaysatay xoolo badan iyo caafimaad wanaagsan. waxaana aad u ammaanay ilaahay subxaanahu oo ku tilmaamay inuu ahaa nebi ayuub mid aad u samray. wuxuu dhibkaas u samray 8 sannadood. dhanka kale waxaa sharaftaas la wadaagtay xaaskiisii liyaa oo xitaa nadarkii uu nebi ayuub galay ee ahaa inuu 100 jeedal ku dhufto, waxa uu ilaahay ugu beddelay in nebi ayuub uu 1 jeedal ku dhufto xirmo ah, sidaasna uu nadarkiisii ku oofiyo. ilaahay ha u naxariisto haweenaydaas qaaliga ah ee ilaahay iyo ninkeedii oo ahaa nebi ilaahay soo diray.